4 sano gudoomiyaha baarlamaanka noo ahaa aniga markaa 8 sanaan joogay baarlamaanka markuu asay iimaanay afarna isaga la joogay 12 sanaan baarlamaanka fadhiyay af Soomaaliga aan ka bartay ama kan hadda aan ka bartay aan meesha fadhiyay waxaan ka walwalaa ciyaalkan magaalada ku dhashay oo aniga aan ka mid ahay sidaan u gaarsiin lahayn ama u gaarsiin lahaa runtii horta af Soomaaliga waxa la afka hooyo la yiraahdo markaan iskuulka dhiganaynay suugaanta markana loo soo dhigo inta buuga soo qaato aan hooyo agteeda soo fariisan jiray markaan gabayga soo akhriyo jooji ay dhihi jirtay wax loola jeedo ma taqaan markaasaan leeyahay waa qiyaasa sheeg waxa loola jeedo waxa ila tahay sheega markaas leeyahay sidaas maana sidaas loola jeedo waxaan idin xasuusinaa marka hooyaday wax ma qori jirin markaas hooyaday wax ma qorayn laakiin waxay aad u taqaanay gabayga iyo waxaan si u ratibayn aad u taqaan marka qaarkood gabayo kale oo kaas lamid ay ugu dari jirtay horta waxaan rabaa ciyaalka magaalada ku dhashay in miyiga la geeyo maxaa yeelay af Soomaaliga runta ah meesha laga soo qaato horta waa baadiyaha laga soo kuwaan hadda baraha bulshada maanta lama sheegin maaqa waxay akhristeen meesha horta af Soomaaliga run ahaan oo ka dhimanayo meeshaas waa abwaanka wuxuu yiri wuxuu aan xasuustaan sheegayaa qaybaha bulshada qaybaha xagga af Soomaaliga dilay oo uu sheegay wasaaradda waxbarashada iyo wuxuu sheegay iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada saddexdaas oo sheegay horta siyaasiyiinta waxa difaacaya Professor Jawaari yaa difaacay waxbarashada waxa difaacaya goodaha difaacaya oo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaad ogtihiin isbuuc ka hor inuu furay manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe oo af Soomaali ku qoran buugaag fara badan la qaybiyay wada ogtihiin oo manhajka waxbarashada marka ma jirin goodax ka hor marka waa difaacay ma ogtahay waxbarashadii u difaacay markaan saas leeyahay hadda ka hor iskuul madaxtooyada ka soo horjeedo aniga aan waxbarashada ku bilaabay ayaa hadda wasaaradda waxbarashada ayaa si ku meel gaar ugu shaqeynaysa anuu ciyaal shahaado u raadinayay maalin imaaday marka dhammaan xafiisyada hadda wallahi dhammaan xafiisyada waxay ku qoran yihiin English ay ku qornaayeen anuu aad u niyajabsanaa soo noqday wasaaradda waxbarashada waa marka in isbedel fiican la soo gaaray waliba anaga waxaan dhahnaa af Soomaaliga professorka sheego waa badan yahay yiri laakiin midka habaysan waa maxaa tiridooda maxaa tirida habaysan marka horta waqooyi inay ka timid oo ayaa mataqaanaa anaga aan rumaysana oo had marka dhageysanayo idaacadaha waqooyiga eraya oo muhiim ah nuxur badan aan ka korarsada markaas kelmada yani xafiisyada dhan ay ku qoran yihiin Englishka wasiirka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud reer waqooyi ahay markaas yani waxaan sheegayaa af Soomaaliga meel halis oo gaaray waa xaqiiq waay taas laakiin waa laga soo qaado sida oo Professor Shirwax u sheegay waa la soo celiyay inuu meel halis gaar waxa ka arkay balbaraha bulshada ciyaalku markay wax isu qorqoray adiga fiiri af Soomaaliga taqaanay miya aniga laftayda anoo la yaabo ciyaalka kala dirira waxaan arkay ayagoo ay isaameeyaba oo sayna markaan dhahay zad qoraaya saaxiibo markaan qoraayana waxaan qorayaa S X iyo B aan qoraa marka waxaas la soo gaabeynaa dhibaatay keenayaan oo run ah marka qaarkood waxaan arkay saaxiibo dileer waa sa iyo laba soo maaha
ciyaalka ma qoraan yani shaqal dheerta ma qoraan waad aragteen marka waxaa soo dhan waa khatar soo socoto waaye waa la fiican yahay af soomaaliga waa la baahiyey oo meediyihii yani idaacadihii telefishinadii waa run waay laakiin waxaa ogaatiin halka wargeyso oo xidigta oktoobar la dhihi jiray iyo halkii idaacadeed oo la dhihi jiray raadi muqdisho ayaa ka taya badan kulligood oo ka taya badnaa way nidaamsanaayeen marka waxa kaloo la gaari karin yani xilligaas waa xilligii farta soomaaliga la qoray waay macnaha af soomaaliga la qoray dadka dhahan af soomaaliga ka hor waa lagu hadlayay waa la qoray waa run marka waxaa loo baahay marka af soomaali lama baranayn ee macnaha qoridiisa la baranay macnaha oo kasi hor maxaa ku hadlayna af soomaali la baranay hadii loo kasi hor maxaa lagu hadlay marka qabashadan munaasabadan mas'uuliyiinta hawshan qaranka u qaabashada uga mahadcelinayna maxaa yeelay yani aqoon isweydaarsiga ku saabsan afkeen oo maalin loo sameeyo sidaan oo kale loo soo bandhigaa wax badan kordhinaysa aad iyo aad u mahadsantihiin arrintaas in mataqaanaa si oo abwaanku u sheegay loo sii dhaqan geliyo aad iyo aadaan mataqaanaa u taageersanahay af soomaaliga jawaari uu sheegay maantay oo xataa salaadii aniga duraan oo soo salaadaha abadkay ma maqal salaad oo wacays la dhahayana ayadana weligay ma maqal marka aniga ciyaalka markaan dhalinyarada xaafadda waa la sheekaystaa waxaan aad uga walwalaa meesha ay af soomaaliga ka joogaan iyo macnaha sida aniga inta aan aqaano farqiga u dhexeeyo yani waxaan isdhaa kuwaan ma dhowa walaa meeshaan laakiin markaan aan professor jawaari iyo professor cabdiraxmaan beyle markaa u imaado aniga lafteeda inaan meesha waxba ku heynaan markaas arka marka dhammaanteen aan dadaalna aad iyo aad u mahadsantihiin af soomaaligii waxa waaye waa la dadaalayaa laakiin nuxurkiisii macnihiisii shuruucdiisii wixii oo dhan aan sii dhimanaya marka hala soo celiyo aan ku hadalna aan qorno aan marka aan qorayno yeynaan ka wahsano soo gaabina aan saxno erayada la dib dhigtay oo professorku sheegana marka yani tan la toosiyo wixii la dib dhigtana ha lagu soo daro intaasaan dhihi lahaa billahi tawfiiq assalamu calaykum waraxmatullahi